waxaa bilowday tartan si xawli ah ku socda oo u dhaxeeya ganacsatada Soomaaliyeed kaasoo ku qotamo horumarinta ganacsiga iyo bilic soo celinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. goobtan quruxda badan ee ay bulshadeenu ku damaashaadaysa ciidka ka hor waa beerta Banaadir oo ku taala bartamaha Muqdisho iyo degmada Hodan. waxaa lagu idleeyay adeegyo badan oo maalmaha farxadda iyo markasta dadweynaha ka qabtiri doona baahidooda dhinaca dalxiiska ah. sidoo kale goobtan quruxda badan waxaa ku taala goobo si gaar ah loogu talagalay bahda YouTuberiska iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddooyinkan bilaabay jilista aflaamta iyadoo ujeedadooda tahay in halkan ay ku duubtaan muuqaaladooda si bulshada Soomaaliyeed ay u soo jiitaan. wali waxaynu ku jirnaa dalxiiska beerta Banaadir. gabdhahan yaryarka ah waa walaalo waxa la kala yiraahdaa Muwado iyo Maayo. waxayna ka mid yihiin YouTuberada Soomaaliyeed gaar ahaan YouTuberada ku nool magaalada Muqdisho. Muwado soo dhow. abti waa dhawahay aad u dhawahay waa maasan tahay. YouTube-kiina waxyaabaha aad ku soo bandhigtaan iyo xilliga aad asaasteen bal iga sheekay. abti YouTube-keena hala ku jirno waa hal sano waxaa soo bandhignaa jalanjiyo iyo barangi iyo video caadi soo dhignaa caruurta ku midaalaan soo dhignaa maasha Allah. waxaan booqasho aan ku tagay goobtaasi kula kulmay Ismaaciil Xaaji Cabdalla iyo Kabtan Baaro oo ah dhalinyaro soo bandhigta marar badan muuqaalada ka turjumaya quruxda wadankeena. bilicdan hadda aan arkayno ma aha ay sheegay Mareykanka ma aha waa beerta Banaadir mar walbana anaga meelaha qurxoon oo indhaha qabanaya in dadka maaragtay tusna aad ay waajib u tahay aniga kula hadlayaa taa markaan barnaamijyadeedan qabsanayo meelaan beerta Banaadir kuma qabto. beerta Banaadir runtii sanadkan iyo sanadka hore waxaa u dhaxeeya farqi aad iyo aad u ballaaran. anaga waxaan ahayn dadkii beerta Banaadir lagu bilaabay waxyaabaha fiidiyoyada entertainment-ka aan ku soo duubanaynay way nooga duwan tahay marka sanadka hore sidaad u jeedaan hadda waxaa idin muuqda meel aad u qurux badan. waxaa la keenay beerta Banaadir sidoo kale qalab iyo makiino wareegaya oo loogu talagalay in lagu ciyaarsiiyo caruurta Soomaaliyeed ee soo koraysa. Facebook ka fiirsaday waaba sugu waayo maanta ilmiya keenay ilmaano oo hay habaryar dalxiiska baashaalka. Tufaax iyo Kaafiyo waa laba gabdhood oo kamid ah dhalinyarada laga yaqaan baraha bulshada. waxaa lagu bartay samaynta aflaamta casriga ah iyo xayisiinta dharka dumarka. waxay dareemayaan inay beerta Banaadir siisay fursad ay ku horumariyaan hibooyinkooda ganacsi. waxyaabo badan oo imaada sida in filmaan aan ku sameesto kale in video caadi oo aan u duubto page-kayga oo kale iyo inaan design aan ku sameeyo dharka dadka ugu xayeysiyo anigan dhar aan iibiyo aan ku xayeysiisto. meeshan aad ku quruxda badan waxaan u arkaa fursad dhalinteena faa'iido ay u tahay maadaama dalkii uu soo maray burbur aad u badan. ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa moodaa in muddooyinkii ugu dambeeyay ay kala dooranayeen in ay maal gashtaan wadankooda iyo wadamo kale oo shisheeye. waxaadna moodaa tan ah in wadankooda ay maal gashtaan inay u arkayaan faa'iido badan in ay ugu jirto isla markaana ay uga hayaan abaal dadkooda Soomaaliyeed maadaama ay la qaybsanayaan farxadda iyo guud ahaan nolosha Soomaaliya oo ah mid dib u soo kabanaysa. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan waa madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee beerta Banaadir. waxa uu sharaxayaa ugu dambeyn dadaalka ay maamulka beerta weli ugu jiraan qancinta macaamiishooda maadaama ay soo dhowdahay maalmihii ciidka. waxaa lagu sheegaa inay tahay meel cid kasta imaan karta 18 degmo magaalada qofkii ka soo baxay si soo gaari karo. waana goob dalxiis oo leh qaybo badan oo kala duwan haday tahay meel lagu nasto meel caruurta lagu ciyaarsiiyo hool aroos iyo qaybo dhalinyarada ay ku ciyaaraan oo gameska adduunkaas ku yeelaan. Maxamuud Soofeysna warbaahinta qaranka Muqdisho.